السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. Haddaba qodobada barnaamijkan idinku soo gudbinayno caawa waxa ka mid noqon doona aayatullaahiga cusub ee Iran Mujtaba Khamenei oo fariin soo diray dhowr arrimood oo muhiimana ka hadlay. Erdogan iyo Baskiya madaxweynaha Iran oo iyaguna telefoonka ku wada hadlay. waxaa kale barnaamijkan idinku soo gudbin doona Trump oo qorsheynaya in ciidamadiisa ka jooga Yurub uu la baxo si uu Ruushka ugu faysteeyo Yurub. haddaba xaaladaas iyana way soo korortay cabsi ayaa la soo diristay dowladaha Yurub oo markii horeba ku tiirsanaa difaaca Mareykanka. Netanyahu oo sheegay inuu sii wadi doono dagaalka Lubnaan wax kasta oo dhaca ilaa hubka ay ka dhigaan Xisbullah sida uu yiri. haddaba qodobada ayaynu caawa barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa dhammaantood waa warar cusub oo hadda dhow soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn. waa hubaynaa si weyn uga hesheen wararkii macluumaadkii aanu soo gudbinay kii koobaad iyo kii labaad. haddaba barnaamijka saddexaad wixii soo kordha waanu isla socon doonaa. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa aayatullaahiga cusub ee Iran Mujtaba Khamenei ayaa fariin dheer oo uu kula hadlayo shacabka dalkaas soo diray iyo guud ahaan siyaasadda wadaxaajoodka iyo waxa dhan. wuxuuna ku soo beegay sanad guuradii waqtigii ka soo wareegay 40 maalmood kadib dilkii aabihiis aayatullaahigii hore. waxaa ka soo wareegatay 40 maalmood. waa maanta dagaalka uu bilaabanayo waay ilaa maanta 40 maalmood markaa xuskiisii 40kii maalmood ayuu khudbadan ku soo beegay. haddaba marka muxuu yiri الجزيرة وحليها هاي ورقردو صوبحي او دقدقا وحو شيغيا آية الله إيران نكالي رادو مجتبى خمنئي إنو يري إيران دقال ومسعوتو لكن كما تنازليسو حقوقها أي ليدا هاي كما تنازليسو فرينكا تميد هقاميها سريع إيران مجتبى خمنئي أيا وحو كسو آديي maalinta afartanaad dilka hogaamiyihii hore ee Cali Khamenei oo ahaa aabihiis. joogitaanka dadku ay wadooyinka waaweyn u soo baxeen si ay u xusaan munaasabadan uguna duceeyaan aayatullaahiga hore ayaa waxa uu sheegay inay arintaasu ahayd mid muhiim ah in 40kii maalmood ay dadku dibadaha taagnaayeen oo ay u ducaynayeen. Iiraan ma raadinayso dagaal ayuu yiri laakiin xuquuqdeeda kama tanaasuli doonto. Iiraan waxay muujisay dabeecado dhab ah markii ay dileen caruurteena ayuu yiri. ciidamadeena qalabka sida ayaa dagaalka u rogay guul weyn inkastoo ay waxyeelo iyo dharbaaxo u geysteen cadowga meel kasta uu ka soo weerartamayay. dadkeenu waxay ku soo baxeen guulo garoonka dhexdiisa ah waxaana caddaatay in Iiraan ay tahay awood weyn oo markaa aan la dhayalsan karin. jamhuuriyadda islaamiga ah waxay soo bandhigi doontaa ayuu yiri wax kastoo cusub oo ku saabsan maamulka marinka Hormuz. looma qaadan karo in ku dhawaaqista wadahadallada cadowga ah ay la macno tahay in la iska daayo joogitaanka dadkeena iyo wadooyinka ay markaa joogaan. waxaan ku leenahay dalalka dariskeena waxaad arkaysaan mucjiso markaa istaag oo digtoonooda ballanqaadyada beenta ah ee cadowgana iska ilaaliya. waxaan sugaynaa jawaabta ku habboon ee dariskeena koonfureed si aan u muujino ayuu yiri walaaltinimadayada oo ku saabsan dalalka dariska isagoo ula jeeda dowladaha khaliijka. marka hadalkan waxa uu muujinayaa la leeyahay Iiraan wali mowqifkeedii inay taaganta wax aan ka tanaazulayno oo xuquuqaheena ma jiraan ilay. marka dagaalkana wuxuu sheegay inay iyagu ku adkaadeen dadkoodu ay dhabar adeegeen wadooyinka u soo baxeen. dadka dariska dowladda dariska khaliijkana wuxuu sheegay inay ogaadeen had dhagarta cadowga iyo wixii uu sheegi jiray. wuxuu sheegi jiray waa idin difaacaya wax idin soo aadi kara male waxsaan marka waxaasoo dhan waa aragteen u leeyahay. marka hadalkaas wuxuu ahaa hadalkii uu soo saaray caawa
wadaadka cusub ee hogaaminaya iiraan ayatullaahiga la yidhaahdo mujtaba khamenei. waay madaxweynaha turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha iiraan Mas'uud Pezeshkian iyo Erdogan way wada hadleen. Erdogan wuxuu ku yiri iiraanay wada hadallada xooga saar, wada hadallada hadiidinina, ha ka caranina, wada hadallada ha la fariisto, ha la xaajoodo, wada xaajoodka wax kasta lagu dhamayn karaa. hadalka marka Erdogan maxaa keenay iiraan haday barnaamijyadeedu way isku xirayeen waa la socoteen. barnaamijkan kii ka horeeyay waxay sheegtay iiraan inaanay wada hadal tagi doonin inta dhibaatada Lubnaan ay socoto. marka Erdogan hawsha wuxuu u soo dhex galay war waxa gala wada hadalka natiijo wanaagsan ka soo baxda laga yaabaa. wada hadallada hadiidinina, gobolka iyo idinka iyo wuxuu u fiican yahay dagaal ma jirto, wada xaajoodka qaato leeyahay. haddaba marka aan idin tuso madaxtooyada Turkiga ayaa caawa war soo saartay. waxay sheegeen madaxweyne Erdogan inuu u sheegay Pezeshkian lagama maarnimada in laga faa'iideysto wada hadallada si loo gaaro deganaansho daa'im ah. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlayay telefoonka madaxweynaha dalka Iiraan Mas'uud Pezeshkian in wada hadalladu ay muhiim yihiin, waxayna muhiim u yihiin deganaanshiyaha guud ahaan gobolka oo markaa oo wanaaga iyo deganaanshiyaha gobolka ay anfacayaan. way marka wada xaajoodkii marka hawshiisa way socotaa. xaaladihii marka halkaas ay marayaan wali wax cusub oo soo kordhay ma jiraan marka laga reebo Israa'iil iyo waxa istuuriyeynaya nimankii Xisbullah ayaa wali isweeraraya. xaajadu halkaas ay marka joogtaa ay maraysaa. nimankii Xuutiyiinta iyaguna war kooban ay soo saareen ay leeyihiin mufaajaad aan samayn doonaa. mufaajaadku waa waxyaabo aan xisaabtaba ku darsaneen oo aan la qiyaasi karin aan la soo baxayna ay leeyihiin. nimankaan abawaabis dhameeyay Iiraan iyo awlaadeeda caadi baa. marka hawshaas iyaduna halkaas ay maraysaa. marka wixii warar ka soo kordha xaaladda gobolkaas iyo arrimihiisa waa la socon doonaa. sheeko kale oo muhiim ah caawa soo korortay la leeyahay ninkii Trump ahaa wuxuu qorsheynayaa dagaalkan iyo arrintan Iiraanba mar haday ka lug baxay oo ka dhamaato in ciidankiisa ku sugan Yurub uu qaadanayo. Yurub marka hore waxaa deganaa ciidan fara badan, meelo badan ay deganaayeen, wadamo badan oo Yurub ay deganaayeen. marka waa qaadanaynaa maadaama Yurub ay nagu fiirsatay dagaalkii Iiraan annaguna ma difaacayno waa ka tagaynaa. Yurub marka hadii laga tago maxaa xal u ah? ruushka ku faysteenaya way. ruushka awalba Mareykankaas iyo waxaan uga warwareeganaa maan Yurubtan hal maalin oo ku qabsanaa lagu leeyahay. Iiraan waa imtixaana. waxa Yurubta lagu sheegay gabgablayaasha waaba eberkooda lagu leeyahay. waxay hayaan Mareykan isku haleeyay. marka hadda Trump uu hanjabay wuxuu leeyahay haddii hawshan ka soo dhamaado waa tagayaan. ciidankayga waa ka qaadanaa. idinkeedii taala ruush cidda idinka celinays waa idin taala. nimankii Yurubiyaad waa yaabayinaan leeyahay. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay wakaalada wararka ee Reuters waxay sheegayaan mas'uuliyiin Mareykan oo laga soo xigtay Trump inuu hadda ka shaqaynayo sidii loo soo saari lahaa ciidanka Mareykanka ee jooga Yurub. wakaalada wararka ee Reuters waxay leedahay aqalka cad ayaa laga soo xigtay warkan mas'uuliyiinta waxaana ay sheegeen madaxweynaha inuu hadda daraasad ku hayo sida ugu dhaqsaha badan ciidamada Mareykanka in laga soo qaado qaybo badan oo kamid ah Yurub. ujeeda marka waxa leeyahay nimanka waa laga soo qaadayaa meesha. marka yaa iska celinay marka ruush ma iska celin karaan maya saasay ku dhamaatay. marka ninkii Trump waa xanaaqsan wuxuu leeyahay dagaalkii la igu fiirsaday marka NATO dambe iyo Yurub dambe ciidan difaaca male waa guuraani waa guur nadaaf heli. marka hawshaas halkaas ay socotaa. marka qaybaha kale ee wararka waxaa ka mid ah ninkii Netanyahu ahaa wuxuu leeyahay aniga dagaal ma ka joojinayo Lubnaan ilaa la ii cadeeyo Xisbullah inay hub ka dhigayso. Xisbullah si hubkeeda ku dhigay waaba jugta la isku hayay. dagaalka ma joojinayo ilaa Xisbullah hub ka dhigto. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay leedahay ninkii Netanyahu ahaa wuxuu yiri ma joojinayno dagaalka Lubnaan ilaa hubka laga dhigo Xisbullah oo hubka dhigis lagu sameeyo
sidaasna lagu xaqiijiyo heshiis nabadgelyo oo markaa inaysan iyagu wax huba qaadan karin nimanka la yiraahdo Xisbullah marka sheekada ma shaqeynaysaa ma shaqeynayso hubkaaga keen anigana huba haysanaya marka dagaalna waana dhex maray sidee marka lagu noolaanaya ninka waa dhimo karaale wax shaqeynaa nimankii xamaasa dhiibila hubka hadii ciyaartaas hub lagu qaaday xamaas wali hubkooda hayst waa dhiibayna sida loo lahaa wax la dhiibaa male nin hubkiisa iska dhiibaa miyaa jira ma jirto waxaas haddaba qadar xayeysiisa kadib wixii warar soo kordhay ayaanu soo gudbinaynaa xayeysiinta Israa'iil waxay sheegtay goor dhaweyd inay qaaday 2 weerar oo ay ku qaaday koonfurta Lubnaan halkaas oo ay sheegtay inay yihiin meelaha gantaalaha looga soo ridayay saacadihii ugu dambeeyay inay weerarada ku qaaday dhanka kale Kuwait ayaa sheegaysa hawadeeda inay soo galeen diyaarado drone oo markaa hadda ay la tacaalayso oo ay la dagaalamayso iyadoo aan la garanayn diyaaradahaas halka ay ka socdaan oo ay ka yimaadeen Iiraan laftirkeeda waxay leedahay mandiqada la yiraahdo Azerbaijan al-Sharqiyya oo dhinaca Azerbaijan xigta waxaa la sheegayaa in markaa hanaanka difaaca hawada ay la dagaalamayaan diyaarado drone oo halka hawada Iiraan iyaguna soo galay marka xaaladdu sidaas ay isaga kacsan tahay jawigu waa kaas marka wixii warar soo kordhana barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka haddaad cusub tahayna subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka Facebook-gana follow gareey intaan mar kale kulmayno nabadgelyo